السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو ير أيان إذا صدقي وربا إن إدلو ذا معنا إذا صدقي وحوي شرم بوي يقول لي وحلقوا حري إن هرجيسة يبل وح كتشرا يمشي سهرجيسة يعرك إن وحي كلا ربا هرت هور أيان وجه هذا الفيديو ما في عنا دع سجى أما فيديو فربنا في قسم ساعة هل مرة هذا كهذا شو مرة بعدين كهذا شو ما في عنا فيديو هراك هذا لي لكن فيديو قصدي دي مو هين حرق يعرمهن وحن اللي هي يعرمهن لفلقين مو هين السياسة عادية يأرنكيس وخراي هاد يجسوري أصلاً رأيش كرب حي بل أرنك حرقي سان الدنيا وحير إذا كذب جيو ده أنا جيب خلق الجرايب أنا جيب يوتيوبر كهذا خلق الجرايب وروحا ميلك استوى حرق وحري وحلقة وحسيا لي بل أرنك أنت وحرب ير افتيمي هدي أيدم جرانسا ترند أن وين تدك وجنا وهل كده صوتها يمكن صومالي يوتيوبر ومجرسة السين وحير بدين تحكي كلام كلام يعني وحكلوا إستيرين متشرو قاركودنا دد أن يوتيوبر هنا ودك الدروالية ويوتيوبر هذا الشيء جايبه فهمتي مركز وحن وحير إذا كشيء جا بالوحن لو جت شيء ده بالبحر كله وحرية عشان أبوي بحر كله وحرية بالوحن كيري أيرت وحير إذا كشيء جا ودنيا أنا إذا شعيب بالوحن وحكت بيجين وتشدد اللي جير اللي هي أي باليرة افتيمنا حتى إنه افتيم كرنه بالوحي أودي إذا شخص أهانته وأي وحن كدنيا نضلك يشتري سبسكرايب channel كسبورة عصو soo kale Instagram ka kasoo ku dhigay soo darsato bal waxa ay daawodsiinaya nin kamida asxaabta aan daawado oo video ka soo sameeyay xariga markaas halkan ku shaacin doonaa inuu yahay bulshada si weyn u haystay warar been abuur ah oo laga faafiyay fanaanka caanka ah ee Sharmaboy taas oo la sheegay in gudaha magaalada Hargeysa lagu xiray kadib markii uu ka soo degay arintani ayaa ku soo beegmaysa saacado gudahooda hees uu ku amaanayo Somaliland oo daawaha ka soo qaaday sidoo kalena uu ka qayb galay xuska 18 May waxaana uu ahaa Sharmaboy mid ku in yar hadaba inay iska dib geeyaan raba horta Sharmaboy halkee ay joogay marka Sharmaboy sida aan hadda marka video-ga sameeyay sababta marka qofka video-ga sameeyo waxa uu isku soo dayaa bal inuu de wax caadi ah bulshada hor yimaado sida aan hadda xogta ku helay Sharmaboy waxa uu joogaa Djibouti uu joogaa Sharmaboy heestan wuxuu habeeyay wiigi hore habeeyay heestu barayfad iska ahayd hadda uu baa dabka laga soo qaaday heesta Somaliland waa maxay ujeedada laga leeyahay xumayntani in yar aynu u yar maskaxdii u yeelno Sharmaboy waxa jirtay waqti uu heesta Somaliland soo qaaday dhanna ka madadaala dhanna ka xigmada waxa jirtay in lagu kacay waxa jirtay inuu live soo galay kadibna uu waxyaalo aan loo baahnayn sameeyay haddaba arrinkan ayaa haddana isaguna arrinkii uu ku fawdal in ka agdhow oo la rabaa haddana in mar labaad haddana inuu Sharmaboy qaabkii oo kale u hadlo oo uu ma garanaysaa haddana isku dhex jaaco ayaa la doonayaa qaabkan iga muuqato sababtoo ah waxa arkay youtuber waaweyn oo qoraya Sharmaboy uu xiran yahay haddii waa nin Djibouti ku raaxaysanaya bal aan wax yarna aan idin sii wado faraxsanaa in Somaliland uu imanayo sidoo kale uu ka qayb galayo 18 May asaatee baraha bulshada ayaa ahayd mid lagu baahiyay in Sharmaboy xabsi la dhigay sidoo kale dadka qaarna ay sheegeen in marka Hargeysa uu yimaado in la heri doono asaatee arintaasi ayaa horta inta hadalladu dhimaan waa sax laakiin in yarna ku darsan rabaa Sharmaboy afkiisa hal mar kama soo bixin anigu Hargeysa waan tagayaa hal mar bay ka soo baxday ilaahay ma aha naga yeersiin markaa marna waxay ahayd waqti hore oo uu joogay meeshii la oran jiray in Afrikada hay'adda shisheeye uu joogi jiray ayaa waxa uu yiri markii showga Nairobi la kanslay inuu Hargeysa uu shaqo qabsanaya waqti hal mar buu yiro hasha mar bayna markaas ay ahayd laakiin hadda Hargeysa imanaya mu oran anigu waa shidaya macnaheedu si toos yaabadu qofku aysiisa u shidi karaa mid aan waxba ka jirin Sharmaboy oo kamid ah fanaaniinta aadka loo jecel yahay ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waxa uu hore u shaaciyay ilaa intii bishan May aan ku jirnay in uu Somaliland gaar ahaan ugu talagalay 18 May uu hees u soo wado heestaasi oo ah mid isaga ahaan uu runtii u soo hibeeyay aadna u jecel yahay Hargeysa iyo guud ahaan Somaliland waxaana uu sheegay in gudaha Hargeysa uu iman doono sidoo kalena heestani uu Somaliland siiyay waa heesta hadalhaynta dharisay hadalhaynta beenta waa shaqadhisay ogaado waxana wax kasta waxbay dib garanaysaa isheeg dabada ku hayaan salka ku hayaan waxan waa la xiray bal maxaa xiri keenay nin dhan oo meel amaanay waa lagu xiray maxaa keenay ya
wax ujeedo gaara laga leeyahay ma aha wax iska dhacayo wax adduunka iska dhaca ma jiro markaas wallahi aad baa uga xumay qof ibnu aadana waxa weeye in laga been abuurto oo caadiya ma aha aad u qaldan tahay lagu casuumay munaasabada 18 May wacdaraha ka dhici doona waxaana fanaaniin fara badan oo ka soo kala jeeda Somaliland iyo Soomaaliya ay sanadkan noqonayaan kuwa ay ka qayb galaan xuska 18 May taas oo waqti xaadirkan hore loo shaaciyay waxaana fanaaniintaasi horkacaya fanaaniinta reer Hargeysa ee kooxda xidigaha geeska kuwaas oo wacdara ka dhigi doona maalinta iyo habeenka 18 May waxaana saacadihii ugu way jirtay oo xidigaha geeska oo hogaaminayo Maxamed Bakaal Ciro ayaa heeso soo qaaday iyo kooxdiisa ay kamid tahay Sheekh Hodan Cabdiraxmaan Mursal Muuse Ubaad Aragsan hebel ninka oday la magaciisa magaca raaca ma aqaan adiga asxaabta dadkaasna heesbay heeso fara badan bay xidigaha geesku iyagoo iskuulana soo saareen la soo dhaafay qabanqaabo xoog leh ay ka socota gudaha Somaliland gaar ahaan caasimadda taas oo ciidamada iyo sidoo kale fanaaniinta ay wadaan gaarida ka ciyaar taas oo xuska 18 May ay noqonayaan mid ay wacdara ka dhigaan waxaana shacabka reer Somaliland gaar ahaan reer Hargeysa sharciyada magaalada lagu iibinaya calaamada Somaliland ee astaanta waa iyo sidoo kale waxyaabo ay ka qayb galayaan xuska 18 May ee la filayo in maalmaha fooda nagu soo hayo ay qabsoonto intaas codka isugu joojinaa heesta Sharma way dul istaagaya heestan uu Sharma bay soo hibeeyay waxay noqon doontaa heesaha abid ma aha heesaha horta waqtiyada dhow oo dhan ama 18 May ee ina soo in food hayo dhan soo taad sanad kasta mar baa xuska la dhigaa 18 May waxa ay kamid yihiin horta hadii aan gadaal u yar fiirno waxa ay kamid noqonaysaa heesihii ugu tobsanaa ee abid fanaan u sameeyo Somaliland soo kale wax in badan wali baraha bulshada way sii haysan doontaa intaas oo sanana waa la saari doonaa Somaliland markay noqoto xagga markay raabka noqoto ama xagga raabka markay noqoto fanaanka ka hees aad u qurux badan oo fiican u qaaday waa ilka casaqays waa aragteen markasta oo 18 May dhalinyar hadii ay ahaato hada xafiid meel yar oo ay ku shirayaan oo ay ku xusayaan calankooda hadii ay ama xaflad ay yar qabsaan ama meel yar ku xusayaan heesta koobaad ee la saaraa waa heesta ilka casaqays ku xigtana waa iska garanaysan tan ba markaas aan la baro heestan heesa u sarsareeya tobanka u sareeya ay soo gali doontaa heestan oo Sharma bay maanta u qaaday Somaliland aad iyo aadna waan ugu dhiirigelinayaa dad jeclaysiga iyo ishu Soomaali jeclaysiga Soomaali meel kasto ay joogto in isjeclaataba waxa aad fiican hadii Djibouti joogto hadii Somaliland joogto hadii Soomaali galbeed tahay iyo hadii ay tahay xagga iyo Muqdisho Soomaaliya marka aad iyo aad ayaan mahadsantihiin muuqaalkii intaas iga soo joojin doonaa waxaan ka codsanayaa like share subscribe na dhamaan kanaalka